داوديال ديارة سيدين مقنعة وحلاقة سوري ذي مركلة إثيوبيا وحا سوري ذي إريتريا دقال كي موها إثيوبيا إريتريا وابلوضي nimankii ahaa oromo waxaa weye siyaasadii baratay haddaad maqli jirteen hawiye turub baray oromo siyaasadii baratay maanta ergey bay u direen asmara oo ay leeyihiin nimanka waxaa dhahdaan waddankaana nooga baxa annaga dagaal ma rabno waddanka annaga xaaladda ka jirto yaan xalisanaynaa gawaridaas arkaysaan waa darawallada iska kala goosho gudaha dalka Itoobiya mudaharaad bay samaynayaan waxaa isbaara u dhigtay ciidankii abiy ciidanka oromada ahayd isbaara u dhigteen waxaa isbaara u dhigtay ciidanka jabhadda oromada waxaa isbaara u dhigtay ciidanka jabhadda matalaada axmaarada ninkaas wuxuu leeyahay mataa isbaarada lacagteeda keen haddaad maqli jirteen Soomaali isbaarooyin baa yaala Itoobiya wakaa gawaaridii intaa la eg ee u kala gooshay gobollada isbaara hor taallo iyagana inay bixiyaan way diideen waa falanqeynaa xaalka Itoobiya marka dambaysa waxaa moodaa inuu ka sii darayo waxaa weeye waxay ku jiraan aad bay isku ilaalinayaan waayo dagaal inuu bilaabanayo saansaanteeda matana way socotaa cid kastana matana way ogtay Itoobiya xaaladeedu saacadba saacadda ka dambayso way ka sii daraysaa halka aad ka ogeed ma joogto barnaamijkan waxaa ugu heliyo saaxiibkay gooni uu soo dhaweynayaa haddaan ku bilowno Itoobiya isbuucan gudihiisa waa markii labaad oo diyaarad laga soo riday diyaaradii ugu horreysay waxa ka soo riday TPLF tii ku xigtay mataqaanaa wax ka soo riday mataqaanaa Eritrea diyaaradaha marka waxaa la yiri waa diyaarado drone oo wax sawiro say ogaadaan saldhigyada ciidamada iyo meelaha kala joogaan hawlaha dhan kadib mataqaanaa duulaan say u qaadaan marka diyaarad kasta oo la diraba waa la soo ridaya بدأنا مع سنتاي هرتا إلتريا وحسب مسارن هالسا كو قلب أي وحكو حرتي بورها كو بور عصب يقول حي حدك إثيوبيا أي قلب كحرتي هي قلب كاسي وحب حنا السيجنال بانا أو إن معناها ماشس وحيالان عمل وبحنا يا كو مركب ماشس وحيالان صورك قادسة ماشي مركب صورك قادو وتارجت بيانا مكت مركز كده بقى أي لا بيكسنا وقلب كاس مصر على كان أيه marka nimankan waa la socda xaaladooda TPLF maalinta hore waa sheegatay Eritrea waa sheegatay tii la soo riday isbuucan haddana tan Eritrea soo riday deegaanka bur xadka iyo casab intuu dhaxaysa ku soo dhacday baasha haddana waxa leeyahay dagaalka Eritrea iyo Ethiopia saas ku bilowday sababtoo sirdoon la isku diray waxba hawada la iska jaajuusaya waxyaabo badan la isticmaalaya dagaalkiina wuu qarxay maanta dagaal kala ka dhacay dhankan faano xataa dhankeeda dagaal culus ka dhacay oo Ethiopia dagaalkeedu ku banaysaa sagaashan iyo laba qofood ee duqeyn ku dishay dowladda Ethiopia ayagana faano waxay sheegtay 300 qofood oo ciidanka Ethiopia ay burburiyeen marka dagaalka Ethiopia ka jiro waa mid weyn Abiy Ahmed wuxuu go'aan ku gaaray inuu soo afjaray TPLF kadib min Eritrea u gudbo Eritrea waxay go'aan ku gaaray TPLF la taabto inay taas dagaalku ugu biiraan oo si loo soo afjaray Abiy Ahmed iyo maamulkiisa marka dadka siyaasadda falanqeeyo waxay leeyihiin Ethiopia haddii ay xabad bilowdo ama TPLF ku bilowdo ama faanaha ku bilowdo ama nimankan kale Eritrea ku bilowde waa isku mid meesha xabad ka rido meesheedii kale waa صح بربر كبحة وبكير قلنا هذا وين مركا تاسو حموجنا إن دجال كيتوبيا لتري بلاودي ومرة دي ديار لسكو سوردي حد كي جادوسين تيجوان إن قلب لسكو حري قنتال إثيوبيا نمكن لتري لو بقولوا قنتال أي حد كنا ووجد هناك على السوق هذا وين نمكن اللي راد إثيوبيا لسيدو كلا قنتال هذا سوبر ليه وارد أي نوحي هذا محسوته سقوط قيننا ماشي اللي رادو على السوق هذا وين مركا أبي أحمد هذا حلولي هاي habeenkii maqribkii markii la gaaro magaalada waa laga bixiyaa oo duqeyn ma si aan magaalada loogu duqeyn oo target looga dhigin marka taas waxay muujinaysaa in cabsi dagaal uu jiro oo Eritrea iyo Ethiopia isfarsaarayaan TPLF iyo faanana ay rabaan in Addis-Ababa galaan dagaalku inta uu ka sii weynaan karaa aad weyn Abiy markuu wuxuu sameeyay diyaarada soo iibsaday qalab casri oo keenay اسبوع لسو دافر هو با سو دغاي باور عبد البليال سو دغاي aad u tiro badan waxa soo dhan qalabkaas ciidanka la gelinaya hawsha marka soo socoto waa howl weyn dagaal weyn oo qorsheysan rabo Abiy inuu qaado ko marka wuxuu yiraahdo waa inaan tirnaa TPLF ko Tigreega markaan tirno on ka adkaano nimankan la yiraahdo Eritrea markaas oo galina
وسببت مركي أنتوا أرجع ما تقول درين إليه محوها أنا دجال مرة لمن كان ما تغني حد كان نقب حد معناها وقرشها الدجال وحوي تيبر لو تراوي صار تيبر في ترى نسعته أبي هالمرة ما دجال ما لا دجال كرو إنه ما كلا جرو إنه أي كلا جرو عليه وني اللي ترى إذا مسعنا بدي إنه مسعنا مال ومسعنا نقب حوضنك نقب حوضنك سيو تيبر لفوعنا مركي تيبر لفتوعنا هذا عليه عصا وصعنا أفضل عصا وصعنا لكن ما كانوا فاسين وهذا الشحذ أبي أحمد الدقي أفر سنة جرا تضوعتني أفر سنة جرا محل هذا سياسة فرق وكسر رياء وكسر رياء هذا وين لما جبارك سؤالين وضلي كروا مركا تاس وكوفش المدن أبي أحمد كارتوين بدن عياري ودون بدن لا عياري أنت ولا هو بوليست أبي أحمد شح بدن بنجورة اسكودي إنه إلى تري مالك على مصر السودان مالك الأودو شحاس الصومال حتى الأودو اسكودي وكوفش الم مركا ضد كان أول جالن جرين وضد كأخر بدن كسياسة بدن كوي أركسان واي مركا أدو أسكري وأن كادو يهاي تترمو ما أودي كرت إن مال بدن لا جالن جريس مركا أبي وكوفش الم dagaalka Ethiopia la tireen oo bilowday cid walbana isha dhigta ku haysan la dhigta u taagnaad gooni Ethiopia gudaheeda waxa ka bilowday isbaarooyin aad u tiro badan waliba oo meel kasta yaala darawaladu way cabanayaan oo waxay leeyihiin ma dhaqaaqi karnaba saacada u dhaaqano ciidanka Ethiopia isbaara dhigan hadii la dhaaqo oo la dhigan xaga dil xamaara dhigan isbaara meel kasta taal waa run isbaarooyinka horta way socdaan hadda waxa ugu daran dhulka dowladda deegaanka oromadii aad dhigatay gobolka city wadooyinka soo galay waxay afduubteen gaadiid fara badan kadibna waxay weydiisteen calaa qof 500,000 oo bir inay keenaan taas marka waxa way qayb kamid isbaarada waa nimanka oo la yiraahdo niman baahan waa oo baahida ku badatay waxayna ku nool yihiin arday la afduubo iyo dad socoto jidka loo galo iyo waxaas lacag ka raadiyaan niman gaajid disho waa ciidamada Ethiopia waa isla nimanka la yiraahdo Oromo leewa isbaarooyinka faraha badan ee dalka Ethiopia aad u tiro badan aad weyn waxaan isleeyahay marka haddii isbaarooyinkan ay bataan waxaa badan doona dagaalka xaqiiq weyn oo dagaal meel walba isbaaradeedu badato haddii wax kala waayaan ayagaas qabsanay sababtoo waxaa lagu dagaalayaa hunguriga laba nin oo maxaa la waxa isku diro hunguriga isku diro marka haddii wax la soo dhaco marka dambe hungurigaas anaa badsanay marka dambe labaaba dhacaysa marka marka Abiy Ahmed uu og yahay in Ethiopia ay ku jirto jahwareer mid gudaha ah iyo mid dibadda ah marka ninka arintan Ethiopia ka sameeyay bixila dalka Ethiopia ma joogaba waa nin dagaal ku jiro waa nin wax la dira ku jecel waa nin wax la dhibaatay jecel waa nin adii musubixi waay oo Ethiopian musubixi Ethiopia marka hawsha inay iska socoto wax dhibaato ka iman karta kale Abiy Ahmed no meeshan waa meesha ku burburi lahayd Ethiopia ku burburi lahayd haddii dagaalkan uu ka baaqsadana Abiy ma badbaaday hadduu dagaal galana ma badbaaday labadu ma badbaaday ama santahay daawadii intaas waxaa ku soo afmeerina la wadaagaa saxaabada